الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات، الله تبارك وتعالى أيام هاد إسكاله وأمان ضمان تيد إسكاله ku amaanan oo ku mahadsan nicmooyinka uu inoogu nimceeyey oo aad u fara badan oo aan la tiro koobi karin. sidoo Rabbigeen tabaaraka wa tacaala quraanka kariimka inoogu sheegay: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladhalumun kaffar. ilaahay nicmooyinkiisa haddaad tirisaan ma koobi kartaan, insaankuna waa mid dulmi badan oo kufrin badan. nicmooyinka ilaahay ina siiyey tabaaraka wa tacaala oon tiro koob ka lahayn ma sinna, oo nicmooyin isku mid ama aha, way kala qiimo badan yihiin, wayna kala waaweyn. nicmada ugu qaalisan ee ugu qiimaha badan waa nicmada la yiraahdo nicmatu diin wal iimaan wal is'aad. waa nicmada diinta, iimaanka, islaamnimada. waana nicmadaasi mid runtii keenta liibaanta. waxaa ka soo haray waa nicmo adduunyo wey. nicmada adduunyana waxa waaye waa waxaad u qiimo yar oon qiimo badnayn. sidaas daraaddeed ayaa wuxuu yahay muhiimaddu ama kelimada aan doonayaa inaan ugu xusuusiyo ilaahay tabaaraka wa tacaala nicmooyinka uu bixiyey taa ugu qaalisan ee ugu qiimaha badan inaan wax yar aan idin xusuusiyo. maxaa yeelay waayahan dambe dadka waxaa qaatay ama ka tambatay waxyaabihii kale oo adduunyada iyo madaahirteeda iyo mataalibteeda iyo yani muxuu ahaayey quruxdeeda iyo dhaldhalaalkeeda ayaa in badan dadka qaatay oo halmaansiiyey wixii ay haysteen ee ilaahay ugu nimceeyey, wixii ugu qaalisanaa, taasoo ah nicmada diinta iyo islaamnimada.
الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وحوليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ما أنت أيان لما يستري دينتينا ما ندين لما يستري نعمة يدينا كركينا كل لما يستري إسلام كان الدين هام بان رالي إذين كان نقضي أتممت عليكم نعمتي نعمة يدي با كركينا أن كل ما يستري بالله حيث النعمة دا كركينا لقول ما يستري ونعمة دينية دوا إلهي كتابك يوسود الشنيي إيه وحيجي السعودي إيه خير كي لينوع عدينيي ayaa wuxuu gaaray dhameystiran ayadu waxay soo dagaysaa nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam oo jooga banka Carafo xajkii ugu dambeeyay ee xajka sagootiga la yiraahdo asagoo nabigu jooga banka Carafo gelinka dambe ayay aayadani ku soo degtay نعمدي way dhameystirantay diintii baa la idin dhameystiray sida aayadu ba tilmaamayso meesha waxa ka muuqata nicmo waa nicmo diineed nicmo iyo wax qiimo leh waa iimaan iyo islaamnimo iyadaas ruuxu haduu helo إلهي تبارك وتعالى وحو شعلا ينعمدو بحي ودن وكل ما يستري كركيس هدو روح الدين يا إيمان يا إسلام نموايو waxa uu haysto oo kale oo dhan wax macna iyo qiimo kuma fadhiyaan wala caruurtan qiimo ku fadhiin wala xoolahan qiimo ku fadhiin wala guryahan qiimo ku fadhiin wala baabuurta iyo gaadiidkan qiimo ku fadhiin ولا كراست يتشجوين كان قيمة كفردين هذا الروح مربى وايو إيمان إسلام نمو وحكى لوردان وحقيمة أمله ربنا تبارك وتعالى النبي سوحو كويري يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين نبيو وحي كوكو قال ديسانيان وي أبال كوكو شيغانيان إن إسلامين والدين تقاتين ووحي كردقيان وحي أديق أبال كوكو قالين وكالي واحد كنت هذا أنيق وحبها يقول قالت شيغانينا أبالنا هيقول شيئا وحد أنا إيجا شيء ما جرو بلسه الله تبارك وتعالى أيا كركينا قلت كله هاي تقلد على كركينا كله هاي أن هداكم للإيمان إنه الله إذن هنوني أو إيمانك إذن كو هنوني تاسا وحي تهي قلت وين نعمة وين أبالك وين إلهي تبارك وتعالى وإذين قلي آياتاس نعمة إيمانك يا إسلام نمضو ونعمة أستانت أوأ أما علامة أوأ إنه إلهي أضوم كاتشعريه إلهي الروح إسلام نمصيو وإيمان صح سيو وعبادتي سأو وافجيو وشرعي سراعة إلهي تبارك وتعالى أدون كاس وجعلي لكن هدي انت الله سينين ها هاتين لغا درجيو الدنيا لغا درجي يعني وجه الله سيو حول الله سيو عرور الله سيو الدون كودن غعنتيسا لا غليو
أنسى إيمان لسينين أستان أمها علامتنا أمها إن لا تشعليه إلهي إنو كتشعليه هاي وحاكو تصيه إن الدين لا سيداس دراديد أي النبي قالنا صلوات ربي والسلام عليه وحوليه هاي إن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا من يحب الله تبارك وتعالى الدنيا روح الصيام روح تشعليه هي روح سنشعليه ميدو النعبي هاي نواسيا ميدو تشعليه هاي نواسيا مؤمن كصالحة اللي سيقانا واجباتك القدنية حارانت اسك إلالينيا شريعة رعسا الله تبارك وتعالى وصينا يا الدنيا ملحدك إلهي بإنكرسا وديدا وشريتان كيس ديدا والله علميا كان إلهي وصينا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا الله وحي كون نوانسين الدنيا مؤمنين تا كون قالنا نوانسين سيسمد الدنيا نين اللو مديدين نبي مركا وحي صلى الله عليه وسلم ألا الدنيا وحو سيا ميدو تشعلي هاي هي ميدو سنشعلين با ولا يعطي الإيمان إلا من يحب إيمان كسمسيو عدو تشعلي هاي عدانا هين وحا خاص كأه ضد خاص الله سيو وإيمانك يا إسلام لماذا أما الدنيا ذو عد والبالسي كالا النعبي هين والسي كالا تشعلي هين والسي لأن مهمته وحواي سيسمد الدنيا ذا ليس السينا يو مهمته وأون امتحان كان روح حنا والله امتحانا روح ونكسنا والله امتحانا سأصدرت بربنا وحيدي فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن إنسان كهدو الله امتحانه حلقة بالله هدو امتحانه أو نمعيه أو كراميه وأدونك أو أصعيه وحوليه ربي جايبه كرامي حالي هدو ربي امتحانه او رزق كحريريو وحوليه ربي جايبه اهانيستي وفيرس رزقي كيلو حريرينا وحالي هو امتحان كيلو واسعين وحالي هو امتحان مقصودكم معها مركا الدنيا دني واو الامتحان مويه جعيل لكم تصيصو نعيل لكم تصيصو لكن شيء اللي قلت عليه هاي أو اللي قلت دورتي والقيمة لهذا هاي كتصية ومبدأ وعقيدة ذا وأخلاق ذا وقابدقا كان ومبدأ الرعسان تاهي كاسا أما قيمة كويالي أما قيمة لآن كردقية مسألة مهم كامرك إنه قانو بها وحي تاهي إلهي تبارك وتعالى الدون كوحو بحيو حاقو قالسا إيمانك أبو قالسا سلاني وضع أبو قالسا وح إلهي بحيي يضع قالسا حي إلي وحي كتر شميسا إن إلهي كدورتي وأدوما ديسا إنت وضعك لأ وإلهي كدورتي تبارك وتعالى نبي قالنا صلوات ربي وسلام عليه حديث باك السجن أوليه هاي مالنت قيامة مركي لا تجو قيامة لا يسوق تجو الله تبارك وتعالى آدم بوله الله يا آدم وآبهن وأصل كنيو مركز ربي وحكله يا آدم ابعث بعث النار عبورت هذا
intii naarta loogu talagalay ka soo saar baa la leeyahay soo soc markaasuu wuxuu leeyahay yaa rabbi min kam rabbi yow inteen soo saaraa meesha la wada tuban yahay meesha la wada jooga ilaa ilmihii ugu horreeyay uu dhalay ilaa ka ugu dambeeya dhalan doona meesha la tuban yahay gaal iyo islaam aadamow caruurtaada intii naar loogu talagalay soo soc baa la leeyahay markaas wuxuu leeyahay rabbi yow inteen soo saaraa markaasaa rabbi wuxuu ku leeyahay min kulli 1999 kunkiiba waxaad ka soo saartaa 999 ma aha boqolkiiba ma kunkiiba 999 soo socda la leeyahay intaa waa intii naar loogu talagalay yaa janno loogu talagalay iyo naxariis halka soo hadhay kunkiiba hal baa badbaadaya marka kunkiiba halka badbaadaya ilaahay tabaaraka wa tacaala hadduu kaa dhigay miyaysan nicmo weyn ahayn yaa wax loo dhigaa jira marka ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu bixiyey waxaa ugu qaalisan iimaanka iyo islaamnimada bal wax loo dhiga maba jira wuxuu rabbigaan tabaaraka wa tacaala qur-aanka inoogu sheegay meelo ka mid ah qiimaha isaga ah buu meelo badan inoogu tilmaamay waxaa nabigiisa uu ku leeyahay rabbi tabaaraka wa tacaala walaqad aataynaaka 7 min almathani waalqur'aan alcadiim laa tamuddanna caynayka ilaa maa matacnaa bihi aswaajan minhum waxaan ku siinay nebi maxamedow 7 aayadood baan ku siinay oo soo noqnoqonaya qur-aanka weynna waan ku siinay waxa gaalada qaybo ka mida loogu raaxeeyey indhaha u taagay wax kaaga filan oo kaa kaafiyey baan ku siinay muxuu yahay 7 المثاني والقرآن العظيم ومحو يهي سيدا النبي كفسري 7 المثاني والقرآن العظيم وفاتحة هذا الكوحو نقول يا مركب مرتدسة فاتحة اللبسيين هدي إلهي السورة فاتحة كسيين الدنيا أورنا وحا وقبها انتهي مجرى إيضا قفلا أيضا قفلا وحا قالوا هايستان قيبا إيجا كميد الله قرحي إسكا طلنتيتك وحبا إندها هاو تاقي وحبا هاو هنقلتاني وحالو قسية وحكا قيمة بدن وحالو قسية وحكا غدقو كاغا فلا ومعوية سورة فاتحة للمسيح وفي سنة سورة فاتحة هي كقيمة بلنتهاي الدون كي واحد نحدي سيالة أردن سورة فاتحة إسكبة ده وبهذا الأليه لمرق عدد أو السنة أو صلاة فجر ككهر ريا أيا خير من الدنيا وما فيها أيا كخير بدن أو كقيمة بدن الدون كي واحد نحدي سيالة أردن ومحاد نحدي سيالة محاد نحدي سيالة عنتو عنتي والعروشة جلسي والصحراء ريسة هي كادي نقطي وآد أركض إن أسكت تقلو إسكت نظيف الصوت هتكو قصباناتي مرأة الحرطي oo wax yar madkaad qabtay iyadiiba duugowday oo iska tuurtay oo go'go'day guri aad dhisatay
oo aad ka tagtay ilmo aad dhashay iyo reer aad samaysatay oo ama kaa tagay ama adigu aad ka tagtay adduunka waxaa korkiisa yaalaay wax qiimo ku fadhiya ma aha markaad fiiriso haddiiba ilaahay kuu daayo oo waxaad tabacday iyo gurigaagii iyo caruurtaadii iyo xoolahaagii isu kiin daayo oo iyagana daayo adigana ku daayo waa waqti gaaban sidaas daraaddeed baa rabbigeen wuxuu ka cabiray inay iyada dhanba tahay shay kada ah waa lagu kadsoon yahay waa waxaan xaqiiqadiisii aadan haynin ood ula dhaqmayso xaqiiqadiisa waxaan hayn ula dhaqmayso waad ku khaldan tahay waad siran tahay waad ku dhiban tahay haddaad se ogaan lahayd xaqiiqadeeda sidaas sida ahayn baad ula dhaqmi lahayd adduunka iyo waxa dhexdiisa yaalla ilaahay agtiisa tabaaraka wa tacaala uma dhigmo kaneeco garabkeed hadday kaneeco garabkeed ilaahay agtiisa u dhigmi lahayd gaaladaba waxba muusan ka siiyin laakiin wuxuu gaalada u siinayaa qiimayna lahayn wax qiimo ah kuma fadhido shayga qiimaha leh ee qaaliga ah in la gadan karin in la iibsan karin in xoog lagu heli karin waa diin waa akhlaaq waa iimaan waa inaad rabbigaa taqaano waa inaad jidkaad u mari lahayd garanayso waa inaad aakharo iyo mustaqbalka aakharo aada fahansan tahay taasaa waxay tahay waxaan la heli karin waana midda qur-aanka kariimka rabbi ku tilmaamayo tabaaraka wa tacaala ee rabbigeen aayad qur-aanka ka mida sidoo kale uu ku leeyahay ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها الله كتابك القرآن كوحو دحل سيي ودحل لو سيي وكتابك القرآن كالرمين والراعي وبرن وكدقمي وإلال وإهيل وحان كتابك القرآن كدحل السيني addoommadayda intaan ka doortay buu alla yidhi tabaaraka wa tacaala addoommada intaan kala baxay oon ka xushay oo aan ka jeclaaday waa inta aan qur-aanka dhaxal u siiyey haddaadan qur-aanka dadka dhaxalka u qaatay ka mid ahayn ee rumeeyey aadan ka mid ahayn ilaahay kuma dooranin kumana jeclee wuu ku nacay waa lagu nacay waxaa kaloo dhan ee lagu siiyeyna haddiiba lagu siiyeyna waa imtixaan kuwii qur-aanka dhaxalka loo siiyey rumeeyey ayagii baa marka kala fiican faminhum ظaalimun linafsihi waminhum muqtasidun waminhum saabiqun bilkhayraati biidni illah saddex bay u kala baxaan kulligood dhaxalka way wada heleen laakiin dhaxalkii uma sinne nin walba dhaxalka intuu ka qaatay ka kale waa ka badan yahay wuxuu rabbi yidhi kooxda ugu horeysa dadka qur-aanka dhaxlay waa dhaalim linafsihi waa ruux naftiisa dulmiyey culimadu waxay ku fasiraan waa ruux muslim ah oo mu'min ah oo ilaahay rumaysan laakiin waxyaabihii loo diray waajibaadka ahaa waxna wuu sameeyaa waxna wuu dayacaa salaadihii qaar waa tukanayaa qaar waa dayacaya soonkii qaar waa la imaanayaa qaar waa dayacaya sakadii mar waa bixinayaa mar waa dayacaya waajibaadkii diinta ayuu waxna la imaanayaa waxna waa ka tegay wixii ilaahay ka xarimay dambiyada waaweyn ahaa waxna waa iska ilaalinayaa marna wuu qasanayaa mar wuu isxakamayn oo iscelin
marna naftii iyo shaytaan baa intay ka xoog bataan baad arkay adigoo isagoo wixii qasanaya yani waxadaya wax dilaya sinaysanaya qashinka ku dhex jira marka labaadna intuu iswaansado oo qoomamoodo oo ka xumaado baad arkay isagoo isa soo qabtay oo wixii ka halaysna hagaajinaya waa ruux marka waa mu'min waa galab marxabuu ku dhici mar wuu isa soo qaban mar wuu kufi mar wuu kici waa dhaalim linafsihi dadka noocaasa hadday sidaa ku dhintaan ayagoon soo noqonin oon towbad keenin arrinkoodu ilaahay buu u yaalaa laba mid baana la marsiin doonaa ka koobaad inuu ilaahay iska cafiyo wixii khaladaad ay galeen intuu saamaxo ilaahay jannada ku geeyo iyo in aan la saamixin ee khaladaadkii ay galeen cadaabka la mariyo oo laga gooyo markii la daahiriyo oo cadaabka lagu daahiriyo oo wixii ay galeen laga jaro markaa kadib aa jannada la geynaa laakiin laba gooroba marba hadday iimaan ku dhinteen naar ku waari maayaan ilaahay tabaaraka wa tacaala ruux iimaan ku dhintay intuu dooni ha dhannaado iimaankaas ilaahay naarta wuxuu ka xarimay inuu ruuxaasi weligii ku jiro ku waaro marka waa un laga soo saari xataa hadday galaan qaar ka mid a sida xadiidkii shafaacadee nebigu sheegay sal alla alay wasalam qaar ka mida inta naarta la geliyo ayay naartu cuni markaasay waxay noqonayaan dhuxul iyaga dhanba dhuxul bay noqonayaan muddadii loogu talagalay markay ku jiraan ayaa laga soo saarayaa markaasaa waxaa la dhex gelinayaa webi la yidhaahdo webiga nolosha markaasaa waxay usoo dhalanayaan sida xabadda yarta ahee dhulka la geliyey ay usoo baxdoo kale bay soo baxayaan ayagoo dhalaalaya oo cusub dib usoo noolaanaya qolo waa qoladaasoo waa dhaalim linafsihi waa mu'min laakiin waa mu'min wax badan ka qasan yihiin qolada labaadi waxa weeyaan waa muqtasidka maxaa la yidhaahdaa waa mu'min wixii waajiba loo dirayna waa hagaajinayaa wixii xaaraanta waaweyn ahee laga reebayna waa ka fogaanaya laakiin waajibaadkana wax badan oo sunno ah ma raaciyo xaaraanta hadduu ka tegay waaweynna mid yaryar iyo waxyaalo badan oo laga fiicanya oo xaaraanta waaweyn ka agdhow kuwaasuu ku ag wareegaystaa meelahaasuu ka qaraabtaa laakiin ta waaweyn wuu ka fogaadaa marka waajibaadkiisii salaadihiisii soonkiisii sakadiisii xajkiisii wixii waajib ahaa ninkani waa keenay laakiin xaggee dhib ku haystaa salaadii wax badan oo sunno ah lama socoto soon badan oo sunno ah ma wato xaj sunno ah ma lahan saka sadaqad badan oo sunno ah ma laha wax sunnoo badan lama socoto xaaraantii waaweynaana maya uma dhawaana hadday marmar ka dhacdana waa toobad keenaya waa soo noqonaya laakiin waxyaala waxaa jira kaleeto oo uusan ka ag fogeyn qoladaasi waa qolada muqtasido waa dhexdhexaad dhexdu ku jira xaalkoodu muxuu noqon doonaa kuwaas hadday saa ku dhintaan kuwaasi jannaday geli doonaan insha allahu tacaala iyagoon cadaab marin maxaa yeelay ruuxa muslimka ah hadduuba waajibkana meel saaro xaaraanta waaweynna ka fogaado intaasi waxay ku filan tahay inuu jannada galo isagoon cadaab marin qolada saddexaad waa qolada rabbi ku tilmaamay saabiqun bilkhayraati biidni illah waa qolo khayrka ku hormaray oon la gaadhi karin ilaahay idankii waa dad tegay kuwaas hadday waajibaadkii la yimaadeenna waajib kasta waxaa la socda intaasoo sunno ah
salaadii duhur intaasoo sunnaa qaar baa ka horeeya qaar waa uga dambeeya salaadii muxuu ahay cishaha sunan baa la socda maqribkii sunna u la socota salaadahoodii sunna la socota waajibkii iskaba dhaafay siyaaday keeneen xaaraantii weyneed iskaba dhaafay xataa wixii ka agdhawaa oo dhanna waa ka fogaadeen wixii diintooda dhaawacaya shaki ka galoo dhan way ka carareen dadkaas iyagu والسابقون السابقون أولئك المقربون كو إلهي أكتيس كدو ولا سوء ويقواس درجات كأسر هي ضدك إسكالو قالوا حاكم ذا سيدا حديث كالنبي قلت الله صلى الله عليه وسلم تضباطا كن ومدن كم ذا وشنده قلي دونا أيقون لنا عذاب لنا حساب أرد شنده كو قلي دونا سيدا النبي صلى الله عليه وسلم تضباطا كي كن النبي صلى الله عليه وسلم إن لو سياديو سيدا حديث كقصة مركزة الله أسيادية تبارك وتعالى انت صدر اسكدر كي وهري ظالم لنفسه هي مقتصدك هي سابق بالخيرات صدحدو ايغا كلا في عن مويه كل وحي سو ودغليان ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباد إلهي با ودا دورتي حقرنيسا marka mu'minka caasiga ah ee dambiilaha laakiin mu'minka muslimka ah ilaahay waa doortay doorashada la doortay waxa weeyaan in laga dhigay muslim marka Allah tabaaraka wa ta'ala wala layal nicmo wuxuu ina siiyay oo khalqi farabadan ka qadiyay diin buu ina siiyay islaamnimo ina siiyay adduunka meeshaynu kaga noolahay waa taqaanaa meeshaan ka degnana waynu naqaanaa nicmada uu ina siiyay xoolo la iskuma siinin oo haddii xoolo darteed la isku siinayo qaar baa inaga xoolo badan haddii awood la isku siinayo qaar baa inaga awood badan haddii qurux la isku siinayo qaar baa inaga qurux badan haddii horumar iyo ilbaxnimo la isku siinayo qaar baa inaga horeeya haddii aqli lagu bixinayo qaar baa inaga horeeya bal adigu isweydiiyo nicmada inta leeg ee qiimahaane ilaahay muxuu kugu siiyay inta kale oo badanna looga qadiyay waa ilaahay tabaaraka wa tacaala doorashadiisa waa doorasho ilaahay xikmad rabbi waa nabigeena sida ka sugan sallallahu alayhi wasallam Allah markuu adoomadiisa abuuray nuur buu adoomadiisa ku sayray nuurkii adoomadiisa uu ku sayray maalinka ninkii iftiinka iyo nuurka la qaybiyay wax ka helay maalinku adduunka yimaado meel kasta uu ku nooleeyay mu'min buu noqon maalinkii ilaahay nuurka qaybinay cidii ka qadayna oo laga qadiyayna gaalnimo buu ku noolaan gaalnimana uu ku dhimanay hatta haduu marka hore oo qoys muslim ah iyo mujtamac muslim ah iyo bulsho muslim ah iyo hooyi aabo muslima dhexdooda ka dhasho ku koray marka dambe uu gaalnimo ku dhiman doona uu ka baxaya diinta ku jiri maayo sidaas daraadeed walaalayaal maqsuudka iyo muhiimaddu waxa weeye ilaahay tabaaraka wa tacaala wax qaaliyo ina siiyay ka qaalisa wax kasta ka qiimo badan wax kasta nafteena ka qaalisan caruurteena ka qaalisan xoolaheena ka qaalisan jagooyinka iyo kuraasta ka qaalisan guryaheena ka qaalisan waxa qaaliga oo qiimaha badan wuxuu inooga baahan yahay inaan qiimihiisa garanno kadibna shayga qiimaha leh waa la ilaashadaa inaan ilaashano shaygu hadduu qiimo leeyahay waa la ilaaliyaa waa la siyaadiyaa waa la dalbaa waa la doonaa haddii ilaahay tabaaraka wa tacaala sidaa uu inagu qiimeeyey
aan qiimaynta u qaadan weyno oo hibada khaaska ah aan mudnaanteeda siin weyno ilaahay waa inagala noqonaya sida rabbigay yidhi tabaaraka wa tacaala la in shakartum la aziidannakum wala in kafartum inna cadaabii la shadiid haddaad shukridaan nicmadan ku shukridaan islaamnimada iimaanka doorashada alle daacada khayrka lagu waafajiyey adduunkaaga iyo aakhiradaadiiba wanaaggan ilaahay ku siiyey haddaadan ku shukrin qiimaheeda garanin ilaalinin ayna kula weynaanin ilaahay tabaaraka wa tacaala waa kaa qaadanaya ma istaahishid sidaas daraaddeed baa waxaad arkaysaan dad fara badan oo Soomaali ahaa oo iimaan iyo islaamnimo ilaahay siiyey bulsho muslima ka dhashay haddana maanta gaala aan muslim ahayn sababtu ma taqaanaa sababtu waxa weeye nicmadii buu garan waayey shukrigeedii baa laga waayey inuu qiimeeyo ilaaliyaa laga waayey markay la fududaatayna ilaahay nicmadiisu waa qaaliye ninkii rakhiis ahaan ka dhigtay oo u qaabilay ma istaahilo ha laga qaado ha lagala noqdo kac ama kaniisad gal ama mulxid meelaha taagtaagan oo diin laawa noqo ama muxuu ahaayey buudhiista noqo ama kuwa lo'da caabuda noqo meesha doonta ka dhac laakiin ma istaahishid in iimaanka iyo islaamnimada lagu daayo ninkii marka ilaahay siiyey iimaan iyo islaamnimo waxaa lagaaga baahan yahay inaan diinta ilaashano oo aan ka shukrino nicmada iyada seen uga shukrinaa carabka alxamdulilah qalbiga inay qalbigaaga ku weyntahay xubnaha inaad waqti badan ku bixiso inaad ilaahay nicmadan uu ku siiyey aad siyaadiso cilmigeeda raadiso oo waqti ku bixiso wax qaaliya aad ku bixiso oo waqti qaaliya geliso oo xoolahaada qaaliya aad geliso maskaxdaada qaaliya aad geliso inaad raadiso dalabto in aad ilaashato wixii khatar gelinaya aad ka ilaaliso in meeshii aad isleedahay dhib baa kaa soo gaadhaya oo nicmadan qaaliga way dhaawacmaysaa inaad kala cararto ibn aadankana saasaa lagu yaqaanaa waxa uu jecel yahay ee agtiisa qiimaha ku leh markuu is yiraahdo khatar buu ku jiraa wala carara waxyaalaha ku tusaya waxaa ka mid ah inay diinteennu agteena rakhiis ku tahay rakhiis oo waxyaalahan haysana waxa ugu rakhiistan agteena inay ka tahay waxyaalaha ku tusaya waxaa ka mid ah nafteena markay halis gasho ama aan cabsano waan qaxnaa waan cararnaa maanta haddii la yidhaahdo magaaladan iyo Tobori waa la isa soo galay oo naftiina khatar ku jirta oo wiigan wixii ka dambeeya ciddii loogu yimaado inay badbaadayso lama hubo waxaa tabacdeen oo dhan waad ka cararaysaa sooma waad qaxaysaa meel uu qax idin gaadhsiiya waad qaxaysaa carruurtaada haddii la yidhaahdo halis bay ku jiraan waad la carari xoolahaaga haddii lagu yidhaahdo khatar bay galayaan waad la carari oo waxa halkan idin keenayba soo saas un maaha oo intaasoo qaaradood aada la soo jiidheen ama adduunya siyaasi ama naf la carar ama carruur la carar baa ina keenay laakiin markaad diintaada fiiriso hadday dhaawacmayso akhlaaqdii baad ka tagtay khatar baa waxaa ku soo gaadhay dhib weyn cibaadaadkaagii baa dhaawacmay halis weyn baa ku soo gaadhay
wixii khayr ah waad ka xaajistay khatar baa ku soo gaadhay gabadhii xijaabkii dhigatay khatar baa soo gaadhay ilmihii tarbiyadoodii akhlaaqdoodii iyo diintoodii lama hayo waa halis weyn masaajid iyo khayr iyo daaca iyo iimaan kordha iyo ma jiro wax nusqaamo mooyaan waa halis weyn haddana maca daalika wax dhiba ma laha ما في مشكلة وكأن واحد ودان ضدك بدن كود ما بدرين سنة ما بدرين سنة الروح ما أنتو دريمه حنون صدا وحتى الضنقضة وحل رادية مركو حصوب بحيسة خلاصة النتيجة دي نصوب بحيسة وحوي وحن هيسنو وحي أقوق قال سنة إنو الله رخيصة وحن هيسنو وحي أقوق قال سنة ayaa inoola rakhiisan ilaahayna tabaaraka wa tacaala markaasoo kale addoommada sida sunnadiisa aan uga baranay nicmadaa uma daayo nicmadaa loo dayn maayo maadaama nicmadii qaaliga ahayd qaabka ula dhaqmeen u fiirso saxaabadii nabiga sal alla alay wasalam iyo rasuulka laftiisa magaalada maka way ku dhasheen oo reerahoodii qoysaskoodii deganaayeen oo ay ku dhaqadeen oo ay ku ilmo dhaleen oo guryahoodii hantidoodii taallo ayaa waxay dhibaato ku gaadhay caqiidadoodii iyo diintoodii iyo iimaankoodii xorriyad bay waayeen diintoodii baa halis gashay waxay ku qasbanaadeen inay ka tagaan dalkoodii oy ka cararaan caruurtoodii oy ka cararaan hantidoodii oy ka cararaan deegaankoodii oo ay la cararaan diintooda la qurboodaan ardul xabasha inay ka dhacaan badda maraan oy haddana qaxaan maxay la qaxayaan waxay haysteen wixii ugu qaalisnaabaa khatar galay sidaas daraaddeed ilmuhu ha khasaaro oo xooluhu ha khasaaraan oo guryaha ka carar oo hantidaada ka carar oo raasamaalka la carar raasamaalku waa diinta walaalayaal marka macnaha loo baahan yahay inaynu fahanno waa kaa isagaa diinteenna yaynaan inala fududaanay diintu waa midda degmadan markaad ka tagto goormaad ka tegi doontaa ma foga ilmaha maanta 10 jirka ama 5 jirka xilliguu ka tegi lahaa adduunyadan ma foga haddii 9 jir la gaarsiiyo 9 sano soo socotaay waa berri 50 jir iyo 60 jir iyo 40 jir ninka warkiisa iska badaa ama ruuxa adduunka waad ka tagi markaad ka tagtana waxaad tabacday waad kaga tagi walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum alla wuxuu leeyahay waxaad timaadeen adduunyadiinii ka soo tagteen ood ii timaadeen idinka oo maalinkii aan idin abuuray oo kala ah wax alla waxaad laydin siiyad shaqaysateen oo dhan gadaal baad kaga timaadeen aaway waad ka soo tagteen oo maxaad wadataa waxaad wadataa caqiidadaadii camalkaagii kaasaad qabriga la geli oo aad qiyaamada la soo bixi ood rabbigaa la hortagi oo ama janno ku tegi ama naar ku tegi adduunka intaad joogtana waxa adduunyadan dhadhanka u yeelaya waa iimaanka waa adduunyo aan iimaan lahayn dhadhan male intii haysatay waa wareersan yihiin
stress iyo wareer iyo dhadhan la'aan waa kharribayn ma dhadhamayso adduunka waxaa koosaara oo cuntadiisa iyo cabitaankiisa iyo hoygiisa iyo shahawaadkiisa waxaa koosaaro macaaneeya waa iimaanka waxaa qalbiga dejiya waa iimaanka waxaa adduunyadan macno u yeela waa iimaanka adduunkaagana wuxuu macno ku yeelanayaa inaad diin saxa leedahay aakharana warkeedaba iska daa haddii kale soo maaha ilaahay tabaaraka wa tacaala tanna waa kugu cidhiidhiyayaa tan markaad dhaaftana warkeeda iska badaa oo nabigeenu sal alla alay wasalam wuxuu yidhi dadku markay dhintaan waa mustariixun wa mustaraaxun minhu ninna markuu dhinto iyo nasiino iyo raaxa u bilaabataa ninna markaasaa laga nastaa oo laga raaxaystaa ninna markaasuu nastaa oo wuxuu ka nastaa adduunyadii tacabkeedii shaqadeedii walbahaarkeedii murugteedii dhibkeedii waa nasanaya geeriduu ku nasanaya maalinba maalinta waxba wuxuu ka dambeeyana waa uga sii fiican yahay midina waxba wuxuu ka dambeeyo waa uga sii dhib badan yahay walaalayaal warka murtidiisu waxa weeye ilaa xaddi ma waxaad moodaa wareer baa ku dhacay dadkii waxaa isaga khaldamay wixii mudnaan lahaa ee la hormarin lahaa iyo wixii dhexda geli lahaa iyo wixii la dambaysiin lahaa waxaa inagu dhacday adduunkan maanta jira wuxuu yahay adduun maadi ah oo caabuda maadada oo kuwii nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam ta'isa 'abdu dirham ta'isa 'abdu dinar ta'isa 'abdu al-khamisa ta'isa wantakasa wa idha shika falantaqash waxa halaagsamay oo balaaya ku dhacday ninka uu dirhamku uu ilaaha u yahay dirham buu caabudaaba midka diinaarka caabuda midka maryaha caabuda طبعا midka guryaha caabuda midka gaadiidka caabuda midka kuraasta caabuda ka isaga ah ujeedadiisa adduunka uu nool yahayba ay inta tahay musiiba markay ku dhacdo kama kaco qodaxi haday mudana iskama bixiyo halaagsamo halaagana yuusan ka kicin waa halaagana yuusan ka kicin marka hadafkaagu nolosha hadafkaagu waa inuu ka weyn yahay walaalayaal wax la cuno iyo wax la cabo iyo hoy iyo ilmo la dhalo iyo kuraas iyo jagooyin macna ka weyn baa ilaahay loo abuuray intaasi waa inta xayawaanaadka waa ilaahay gaaladu ku sheegay tabaaraka wa tacaala dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihim al-amal fasawfa ya'lamun daaba layl faraha ka nabi Allah kuwan daa ha cunaan ha cabaan iska raaxaysteen yididiile iyo haysaga noolaadeen way ogaan doonaan buu Allah tabaaraka wa tacaala ilaahay baan kugu dhaariyay ruux muslimaad tahay ilaahay iimaan buu ku siiyay islaamnimo ku siiyay rabbiga baad baratay koonkanaad fahantay maxaa soo socdaad og tahay xagee la marayaa baad og tahay xagee laga yimid baad og tahay waxa soo dhan adoo ilaahay ku ogeysiyo wax badan kala socoto haddana sida xayawaanka inaad u dhaqanto ma muhiimadaadu inay noqoto cun oo cab oo seexo ma shahwo gudo ilmo dhal bas ma hadii xooluhu maxaad ku galgadsantii marka xoolaha foofa iyo adigu maxaad ku galgadsantii aaway macnihi ilaahay tabaaraka wa tacaala insaan ahaan karaamadii uu kugu fadilay aaway
intaasi waa inta xayawaanaadka kale aan la wadaagno waa xoolaha aan la wadaagnaa xayawaanaadka kale aan la wadaagnaa shimbiraha aan la wadaagnaa laakiin macna waxaa jira aan kaga fadilanahay baa jira maxaan kaga fadilanahay waxaan kaga fadilanahay ilaahay aqli buu ina siiyay aqli haduu ina siiyayna diin buu inoo soo dejiyay taasaan marka ku karaamaysannahay ku fadilanahay sidaas daraadeed walaalayaal macnaha ilaahay inoo yeelay tabaaraka wa tacaala tixgelintiisa ha la siiyo oo adduunyadan dhalanteedka ah ha lagu dadaalo ilaahay tabaaraka wa tacaala wixii uu kaaga qoray oo xalaal ah intaad ka qaadato inteeda kale iska fududee intii ilaahay kaaga qoray waliba aad isaga fududaysa nabiga sallallahu alayhi wasallam nin saxaabada kamid ah ayaa wuxuu ku yiri ya rasuulallah dullani ala amalin idha amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas rasuul Allah waxaad itustaa amal shay haddaan sameeyo allana ijeclaanayo dadkuna ijeclaanaya markaasaa nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam izhad fi dunya yuhibbuka Allah wazhad fima fi aydi an-nas yuhibbuka an-nas ilaahay jacaylkiisa haddaad rabto adduunka iska fududee dunyada dhexdeeda ku zaahid wixii uu laga maarmaan ka qaado inteeda kala israacinin maxay leeyahay haddaad israaciso wax iyada ka qiimo badan bay ku seejinaysaa wax iyada ka qaalisan oo ka qiimo badan bay ku seejinaysaa adduunyada ku zaahid haddaad ilaahay jacaylkiisa rabto haddaad rabto dadku inay ku jeclaadaan waxa gacantooda ku jira ka zaahid waxay haystaan ha u hanqaltaagin ha baryin ha weydiisanin ha u baahanin waa ku jeclaanaya dadka ka kaaftoon haddaad rabto inay ku jeclaadaan alla jacaylkiisa haddaad rabtona u baaho oo baahidaada muuji oo adduunkan ka dooro rabbiga tabaaraka wa tacaala oo aakhira ka hormari sidaas rabbiga kugu jeclaanaya tabaaraka wa tacaala marka diinteena walaalayaal aan mudnaanta siino oo aakhiradeenna aan mudnaanta siino oo qabrigeena aan mudnaanta siino oo xaqaa'iq soo socoto inaga hor imaan doontaa jirta qadcan maanta haddaan maaweelo iyo filim been ah riwaayad been oo adduunyo hadday inoo shidan tahay maalinka aan xaqiiqada waajihi doono ma foga qaar badan oo sideenan ahaana maanta xaqiiqadii bay gacanta ku hayaan laakiin meel laga soo noqdo ma jirto si aad uga bixi kartana ma jirto maanta se wali jaanis baan haysanaa wax badan dib ha loogu noqdo oo xisaabtama oo dib wax loo muraajaceeyo oo noloshaada dib u fiiri oo maxaa kaa khaldan oo aakhiradaada maxaa kuu dhisan oo maxaa akoonka aakhira ku yaala oo rabbiga tabaaraka wa tacaala wuxuu kuu diray maxaa ka hadlaysan inaynu diinteena aan mudnaan siino oo aynu gacanta midig ku qabsanno oo iyadaasi ay noqoto mid wada wax walba inagala qaalisan midda loo baahan yahay taa iyadaa weeye wixii adduunyadeena ilaahay inoo xalaaleeyay markaa ha noqdo wax tabac ah wax imaanaya ficlan oo wixii ilaahay kuu qoray marna seegi mayso intii ilaahay ku talagalay inaad dhasho waa dhali laakiin kama badin karti haddii ilaahay kuu qoray 5 ilmood kama badin karti hadduu ilaahay ku talagalay inaadan hal ilmoba dhali mayso intii ilaahay kuugu talagalay kuu qoray waad guursan intii ilaahay kuugu talagalo kuu qoray oo xoolo awaad kasban ka alle waa aayaha kama dambaysta ah ee aynu ku dambayn doono waxaan idin dhihi lahaa marka oo idin xusuusinayaa masiirka iyo qadiyadaas nihaa'iga halista ah ha loo foojignaado dibna ha loo fiiriyo oo mawjadan aan saaranahay ilan mawjad baynu saaranahay aynaan garanaynin xaggee inugula dhammaan doontaa ruux walba marka dib u xisaabtano naftaadana xisaabi maxaad haysaana isweydii maxaa kaa maqanna isweydii xaggee wax kuu joogaan isweydii wixii kaa dhiman intaan lagu imaanin dhamaystir wixii kaa hadlaysan intaan lagu imaanin hagaaji
meeshii diintaadu khatar ku gasho ka carar meeshii diintaadu dani ugu jirto meesha iyada ah ku sugnow meelba meeshay diintaadu uga fiican tahay dooro oo ka doorbid waqtigaaga in badan oo kamid ah diinta gali oo barashadeeda gali oo dhageysigeeda gali oo fahamkeeda gali oo amal falkeeda gali oo u shaqaynteeda gali raasamaalku ka isaga wixii kale oo dhan waa waxaan la garanaynin meel uu ku dhamaan doono faa'iido badanna aynan akhiran ka soo bixi doonin kelimada intaas ayaan ku gabagabaynayaa ilaahay khayrka oo inala doortay inoo dooray aan ku faraadayna insha Allah ta'ala aanan ku mitidno aan ku dhimanno wala tamutunna illa wa antum muslimun islaamnimo oo ku geeriyooda wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin rabbiga aabud intay geeridu kaaga iimaanayso maalinta ka dambaysa waxa la doonayaa in iimaankaagu sii siyaado oo dib u noqon nabigeena waxyaaluhu ilaahay ka bari jiray waxa kamid ah ku ducaysan jiray allahumma inni a'udhu bika min al-hawr ba'da al-kawr ilaahu waxaan ka magan galayaa inaan dib u noqdo dhammaystiran kadib musqaan inay diintayda ku timaado dhammaystirnaan kadib waxaan ka magan galayaa inaan dib u gurto dib u gurashadu waa halis oo ruuxa hadduu bilaabo inuu diin ahaan dib u gurto waa khatar akii xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam amal kasta wuxuu leeyahay nashaat iyo xamaas uu leeyahay ruuxa xamaasadiisa iyo nashaatkiisa diineed markuu soo qaboobo oo hoos u soo dhaco hadduu sunnadii iyo dariiqii diinta hoos uga dhicin iyo xuduudii wali waa fiican laakiin hoos u dhaco hadduu ku gaarsiiyo in farta lagu fiiqo oo lagu yiraahdo waka shalay muslim buu ahaa maanta waka gabadhaasi way xijaabnay shalay maanta say u taala fiiri masaajidda safka hore ku jiray maanta fiiri meeshuu yaallo nin daaci abu ahaayo diinta dadka u sheega maanta fiiri farta hadii lagu fiiqo nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam faqad halak kaasi waa ku daayay waa halaagsamay buu nabigu sallallahu alayhi wasallam marka ina iscilcilinaa rabaa inta tii ilaahay iimaanayso inaad iscilciliso markaad hoos u yara dhacdo soo qabato oo aad yaani wax xisaabtanto oo aad meesha isku cilciliso ama horay u socoto khayrka aad siyaasato insha Allah ta'ala jazakumullahu khayr wa barak fiikum wassalamu alaykum wa rahmatullahi